horta adeer booskaas waa boos muhiima waa booska labaad oo igad waa ku xigeenka xogayaha guud ee ururka Soomaaliya waxay kamid tahay wadamadii aasaasay ururka igad 1986 wadamadii lagu aasaasay kamid tahay waana markii ugu horeysay oo mataqaana secretariatka ama xogeynta guud ee igad ay xubin ku yeelato gudoomiyaha ama gudoomiyaha xigeenka runtii waxay ku suurta gashay juhdi weyn oo dawladda Soomaaliya ay u gashay ku biirida ururkan madaxdiisa waxayna qayb ka tahay runtii dadaalkii dawladda ugu jirtay arrimaha maxuu ahay sheegay diblomaasiyadda bariga Afrika ku biirideeda igad inay miisaan ku yeelato campaign-kaas dawladda ay qaaday gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayay ku suurta gashay runtii iyo loobi shakhsiya mid dawladeed xataa ma mid shakhsiya oo ilaa iyo shalay magacaabidii soo gaaray ayay runtii ku suurta gashay kursiga maya kursiga loo tartamin Soomaaliya shirkii igad oo lagu qabtay Djibouti bishii June ayaa lagu go'aansaday in kursiga Soomaaliya la siiyo maadaama Soomaaliya ay ahayd wadamadii lagu aasaasay ururka welina aysan ka qaban maxuu ahay kursigaas marka waa la isla gartay todobada madaxweyne oo markaas joogay ayaa isla gartay Soomaaliya loo asteeyay kadib madaxweynaha ayaa warqad ugu soo magacaabaya oo soo diray urur goboleedka igad boosku marka maadaama uu yahay boos ka dhaxeeya 8 wadan oo igad ka kooban waa in dhammaan dawladihii oo dhan ay soo aqbalaan isla markaasna ay isu yimaadaan oo ayagoo isla jooga ay mataqaana go'aan gaaraan in qofkaas la magacaabo kadibna dawladda Djibouti oo hadda ah maxuu ahay gudoonka golaha wasiirada igad oo runtii igad maamula ayaa markaa ay magacowday oo muxuu ahay amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geeli wasiirka arrimaha dibadda Djibouti oo hadda chairka ah councilka yaa magacaab runtii shalay muxuu ahay waxa aad looga hadlay arinta Suudaan ayuu shirku ahaa in mataqaana labada dhinac ku dagaalamaya muxuu ahay igad ay taladeeda ku biiriso oo ay tiraahdo war waxa meesha ka socda 2023 in sida la isu galo xaq maaha hal iska roonaado runtii dawladda iyo mucaaradka dagaalku ka socdo sidii mataqaana looga kala dib qaadi lahaa runtiina waa laga gaaray muxuu ahay guulo waa laga gaaray wixii ka soo baxay runtii communique soo baxay ay ku caddahay in labada dhinacba muxuu ahay aadna loogu tirtirsiiyay inay mataqaana nabad qaataan waxa qolo walba laga filanayo doorka igad ka qaadan doonto intaba communique ku soo baxeen waana runtii talaabo muhiim ah oo ay igad mataqaana colaadaas ku qaboojinayso ma runtii waa dagaalka al-shabaab Soomaaliya kaliya halis kuma ah rijiko dhan oo halis ku yahay Itoobiya halis ku yahay wadamada dariska Kenya ku yahay meel walba ku yahay marka dawladda Soomaaliya inay la dagaalanto muxuu ahay shabaabka beesha caalamkuna u ogolaatay in hubkii laga qaado cunaqabateyntii saarneed si dawladdu u hesho hub ay mataqaana ku dagaalkaas u isticmaasho runtii talaabo fiican oo wanaagsan waay طبعا مسؤوليتي waa la socotaa in dawladdu hubka xakamayso dawlad wanaag la hagaajiyo maxuu ahay isha hubkaas oo san gacan xun gelin wadamo fara badan ayaa taageeray mataqaana go'aankaas wadamadaas aysan go'aankii ay ku taageereen Soomaaliya inaysan ka shalayn mas'uuliyad way la socotaa طبعا dawladdu way ogtahay laakiin meesha hadda doorka igad ay ka soo gali doonto biidnillaahi tacaala waa dhinaca nabadgelyada iyo mataqaana amniga in mataqaana dawladda laga saacido inay mataqaana dawladnimadii soo noqoto la xasiliyo deegaanada la xoreeyo maamulkii la gaarsiiyo deegaanada hoose mashaariicda horumarinta iyo mashaariicda nolosha livelihoodka beeraha caafimaadka laga shaqaysiiyo runtii igad muxuu ahay inay hormuud ka noqoto regionkan runtii waa regionka saameynta ugu badan oo cimiladu ay ku hayso waayo hadda wadankeena El Niño ka socota marka runtii hawl weyn aan taal anigana hadda muxuu meel cidla ma imaano eber aniga hadda meel cidla wax ka bilaabi maayo madax baa joogta tiiman baa jooga aqoon-yahanada jooga imkaaniyad badan ayaa yaala marka khibradeyda iyo agrimadeeda iyo perspective-kayga ayaan ku biiri doonaa insha Allah